No one knows the secret. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام، وبرنامج كيني تحنها إنو أها كساب سرا ويدي ولماذا وحدا قرنين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برنامج كان وحيدين سوق بنقابسي منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية. برنامج كان أسئلوين كيسة وحد كسوها قايتين كرتان صندوق يدا كردقان مساجدك إيو إيميل كأي موصد لذا هي ihsanmedia@gmail.com. شو محمد نوحان لنا يكسو دو برنامج كان أذيقو مشكور أهم أجورة بإذن الله المولى تبارك وتعالى. حلقينا نعاوة وحلقة أفراد. سؤال شوقه الرئيسنا هو سؤاشي كنتونات سائشني وحليذا هاي السلام عليكم وحان هاي هو يصو ماليات سؤاشي ذو وحيت هاي هوينك بدن كوت ديك باكي مادة سيدة عادة سيدة حيتك نفاسك يديك فرنك marka waxa weeyaan su'aashaydu dhacanka la dhaho qassatul bayda waysada ma jabiya daahir miya dharka hadii uu gaaro jazaakallahu khayran. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، dhacaanka loo yaqaano alqasatu albaydaa wuxuu ku yimid ama ku soo arooray ahar laga wariyo umulmu'miniina caaisha radia allahu tacaala canhuma oo uu soo saaray alimaamu malik fi lmuwata biisnaadin xasan. aharkaasi wuxuu leeyahay caaisha radia allahu tacaala canhuma ayaa dumarku waxay u diri jireen karin yar oo suuf ku jiro oo markii uu dhiigu ka go'o intay xubinka taranka iyo meeshii dhiigu ka soo baxay geliyaan oo ay ka soo saaraan bay markaa u diri jireen caaisha ayagoo markaa weydiinaya suufka isaga ah calaamadda ka muuqataay ma tilmaamaysaa inuu dhiiggii go'ay mise ma go'in? su-aal ahaan bay macnaha u weydiinayeen caaisha radia allahu tacaala canhuma. markaasaa caaisha waxay ku tidhi laa tacjaliin xataa tarayna alqasata albaydaa turiidu bidalika aطuhra min alxayd. markaasaa waxay ku dhihi jirtay ha degdegina ilaa aad aragtaan qasada cad. waxay ula jeedaa ku'itaanka caadada. aharkaasaa horta ay qasadu ku timid qasa albaydaa. culimmadu fasirkeeda laba macnoba way ku fasiraan. macno waxay yidhahdaan qasada waxaa la yidhaahdaa waa dareero cad oo sida nuuradoo kale ah ama sida cajiinkaoo kale ah oo dumarka markay caadadu ka go'doy ka dhammaato kadib soo daatoo ka soo baxa xubinka taranka. taasaa waxaa la yidhahdaa alqasatu albaydaa. waxayna tilmaamaysaa inay caadadii dhammaatay. culimmada qaar waxay ku fasiraan ma ahee markii dhiiggu go'o meeshu ingegto ayaa dumarku waxay samayn jireen suuf ama karin calal ah ayay gelin jireen meesha. markaasay soo bixi jirta iyadoo nadiif ah oon waxba wadanin dhacaan midab boora ah leh ama mid yeelow ah leh iyadoon waxba wadanin bay soo bixi jirtay. alqasa albaydaa waxaa laga wadaa waa shaygaa la gelinayo xubinka ee soo baxay isagoo nadiifoo cad. sidaana culimmada qaar baa ku fasiray. macnaha horaa loo badan yahay. ayib, haddaynu macnaha garannay dhiigga ku'itaankiisa dumarka inuu ka go'ay laba midba waa lagu gartaa. waa midda koowaad horta calaamadda inay aragto dareerahaas cad
oo dhiigga gadaashiisa soo baxayo dumarka ma wada laha qaar buu ka yimaadaa qaarna kama yimaado calaamadda way ku tustaa inay caadadii go'day calaamadda labaad ee lagu gartana wax way aljafaaf inay meeshu ingegto oo dhiiggii ka imaanayay ay ka ingegto xataa haddaynan arkin calaamadii markaa way qabaysanaysaa waa daahir taa waa xagga qasal bayda iyo macnaheeda laf ahaanteedu waysada ma jabisaa haa leanna siday culimmadu isku waafaqsan yihiin shay kasta oo labada jid ka soo baxa xubinka taranka ama xagga dambe ka soo baxa waysada waa jabiyaa marka waysada way jabinaysaa ma nijaasa iyadana haa waa nijaas maxaa yeelay meeshii ka soo baxday baa tilmaamaysa inay nijaasato jidhka waa laga dhaqayaa hadday gaadho maradana waa laga dhaqayaa hadday gaadho wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشينا كنتني كوبات مقعب وعنب إسماعيل سؤاشيد وشيخ قف كل عي محظوراتك حجك يكون لازم يديك ما لازم با إنه قورع سمايه وقت قوان مساء وقت قوه لا أيو سمين كرا قورعا محظوراتك إحرامك وحلقه وذا الروح مركو حرمضه حجك أما عمرضه حبه وحيالا بضن بحاران كان نقوني واحد دمرك خاصة واحد رجل خاصة واحد كدعي روحه يسقو حرمان هدو وحياله اللودي ذي واحد كم إذا السماء ديك باك اللازمة إن الحولة قشال لازميس حولهاس سؤال شو واحد يكون سنتهاي ملديب ديكي كرام مس وقت قابا إن لقلوي وقت قو أنا بيلي ما دام إيتي واجب شرعي الجواب توصيدا ما دام واجب شرعي أيته روحه وإنه ددتشيو إنت كرانكيسا hadduu heli waayana uusan markaa awoodeeda lahayna xilliga ugu horeeya uu awoodo waa inuu gowraco bimaana xilli go'an oo xadidan oo nas u sheegay ma jiro laakiin maadaama ay waajib tahay fariido tahay ama laazim sharci yahay ruuxu waa inuu dadajiyo waay kolba qadar istitaacati inta karaankiisa طبعا meesha lagu gowracayna waa xaramka oo masaakiinta xaramka la siinay wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤال كنتني لباد مقعب وفرتون أحمد شيخ غير الله كسيه وحا إسوكر ستي إيدادي لدلتي آبهي كدب مركي أي هو يدي دمتي الله ونحرسته إيدو وحا نقو يرا هويو مركا وحدب أهمية لهذا هاي الدين أهان وحدب ملها احترام أهان إن تروح قدرين يسو إيدادا مهابريرتا إن هو يرده ama adeerka oo kale inaad aabba tiraahdo quraanka kariimka waa ku soo aroortay awowiyada in aabba la yiraahdo wakadalika adeerada in aabba la yiraahdo qisadii re'al ibrahim muxuu ahay nabiyullah ismaaciil alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam oo adeerkood ah ilma muxuu ahay ilma isxaaq ay hadana aabba lagu magacaabay marka adeerka aabba hada tiraada ama eedada ama habeerta hooyo tiraado min baab al-ihtiram iyo qadarin hadu la jeedo laakiin hooyada xuquuqdeedii shariicada iyo ahkaamtii hooyanimo aan la siinaynin la baas wax dhibo male wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤال كنتني سدحات مقعي وعبد الناصر شيخ الله كبركيو إلهي درتيس أيان كوجع لهي قفك سؤال شواتم قفك حاسكيسة مركا وقلمونيو بيها بنانك كدادية أما حاسكيسة داوسية سي أيان أدلين أما إربط كدفتا من لمد با قفك إلمها سيدة عادقة أدلة أما مركا وأبورمو كدب صوتورا سألة مركا لنا وانكا هذا الله وكتشوابني تقريبا ilmuhu intuusan uur gelin in uur gelidda ama inuu uurka galo laga ilaaliyo haddii markaa ayna ujeeddadu ahayn iyo waxa ruuxa ku xambaaraya risqka carar iyo arsaaq xaggeen uga helaya laakiin ay jiraan asbaab kaloo kalifaysa wax dhiba male way bannaan tahay asalka lianno
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وكيها كنا نعزل والقرآن ينزل يعني وحن سمين جرنا عزلك سوى قرآن كدقيو عزلك وحويا ninku markuu reerkiisa u galmoodo ama adoontiisa kale biyuhu soo dhawaadaan inuu biyaha banaanka ku daadiyo xubinka intuu soo saaro uu banaanka ku daadiyo taas azliga leeyahay si ay islaantu u qaadin marka quraanku dagaya ayaanu sameyn jirnay buu leeyahay saxaabigu haday xaraan tahayna quraanka noo diidi lahaa حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحده ما عليكم ألا تفعلوا إن إذن صمين وحبا إذن كسو قاري مايا وحي إلهي قري وقدري وأبور مايا حتى سيكستو قور وريت مركا أسلحان واسكب النانتا واقاسي دي وصيلة كالي أما قاب كالي ولغو صمين كرمتشير وبيها بنانكا لغو دادي أنهاي لكن هذا قابا فربضان أيها صوبحي ولغو محوها ilmaha ama biyuhu inay gudaha ku daataan lagaga hortagi karo ama islaantu inay uur qaadaba lagaga hortagi karo marka asalahan way iska banaan tahay khaasatan hadii asbaab keenaysa ay jirto oo midalan yaani maamadii baa midalan ku xanuunsanaysa xaaska ku xanuunsanaysa caruurtan faraha badan midalan kala korintooda ayaa midalan lagu rafaadaya in la kala koriyo مثلا اسباب kala jiri karo ruuxa daafica ku bixin karaya la baas wax dhibo male laakiin hadayna wax sababa uusan jirin oo keenay ama xaaje keenaysa aysan jirin markaasi karaaha ku jirta sida culimada maalikiyada iyo qaarmada kamida tilmaamayaan waxa laga faa'iideysanayaa nabigeena la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam xadiidka fi sahih muslim oo Judama binti Wahb gabadha la yiraahdo warinayso nabiga markii la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dhalika alwa'd alkhafi wa habal nololin qarsoon buu nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani ilmaha iyagoo nool bay aasi jireen jaahiliyada islaamka hor marka tiyo la qariyay waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam tiyo xogaa la yara farsameeyay uu nabiga ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam marka waxay tilmaamaysaa hadii aan xaaje keenaysa aynan jirin karaaha kama marna maxay yeelay asalku waxa weeyaan in caruurta la badiyo asal waa in taranku batawa hadii xaaje keenaysa ay jirtana way banaanta laba goorobana ma gaadhayso ilmo la soo riday lamid ma ilmo nooloo la dilayna lamid ma taa waa jariimo iyo dambi weyn ilmo uur galay oo la soo riday oo ama nafta markii la geliyay ama ka horba taa waa dambi weyn lamid ma way ka duwantaa macna wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤال شكوتني أفراد مقعي هو عبد الرحمن شيخ آدم شيخ إلماء قرآن كأودميي والد كي سنة يقوله الشيء مركا أن قرآن كأودميي إنه يسين دونه لعقاريسة $5 كذبنا والد كي إلمها ولبحي سواء يسين العكتي ويبلن قادي الرنتاس حكم كيدو محون قنيا لما مسألة كحرن تهاي هرت إن لجا هرمريو مد كوباد قرآن كبريد ديسة وحملقو قادن كره هذه جوابته ها نقط ومذهب علماء القار كم إذا إقامانه كدي وحى إيمانيسا معلنك يضدك وعرورته هذا قرآن كبريه عقدك يهشيسك أي قالين ونوعه إن لا توصيفيه أما لا تكييفيه بمعنى معلنك يوالدك واحد نحمر يمحويه إذن عقد قاسي وحيكو الشيغان فوق هذا إنه يهي عقد إجارة ومعناه وحويان وشقاليس يعني أجوروي haddii marka ilmuhu uu macallinku wax ku barayo uu jiro ku barayo macallinku xaqiisa wuxuu leeyahay markuu sameeyo amalkii lagu heshiiyay haddii sharti ay ahayd xoolaha in lagu siinayo markaad ilmaha inta soo juz u dhamayso ama markaad u dhamayso quraanka u kamisho
markaasaad mudanaysaa xaq sida dadka kale la shaqaalaystaba markay shaqadii dhammeeyaan ay xaqooda u mudanayaan haddii ilmaha aad qur-aankii u dhammaysay oo dhankaaga ka soo baxday hawshii lagu dirsaday waalidku inuu ilmaha iskala tago xaqaagana dafiro ama ku siin waayaay waa dulmi waxaana tilmaamaya xadiidkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam marar horena aan sheegnay xadiithul qudsiga ahaa bukhari baa soo saaray allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala halaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama waman kuntu khasmahu khasamtuhu saddex ruux maalinta qiyaamada anigaa ku doodaya anaa haysta ciddii anigu aan qabsadana waan ka rayn oo marnaba guulaysan maayo saddexdaa waxaa ka mid ah rajulun ista'jara ajiiran fastawfaa minhu walam yuufihi ajrahu nin dad shaqo u dirsaday shaqadii markay u dhammeeyeenna xaqoodii aan siinin saddexdaasuu ka mid yahay haddana kaga daranaya waa qur'aan oo waxa ilmaha lagu baray waa diin way sii culus tahay markaas marka waa in waalidku wuxuu macallinka kula heshiiyey waa inuu gudo macallinkuna wixii lagula heshiiyey waa inuu ka soo baxo markaasuu xaqiisu laazimaya uu yeelanayaa caqdiga iyo heshiiska iyo mucaamaladuna waa mucaamalo ijaaro waaye axkaamtii ijaaradu lahaan jirtay ayay qaadanaysaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha konton iyo shanaad sheekh dadka qaar ayaa yidhaahda meydka waa in qur-aan loo akhriyaa gaar ahaan suuratu likhlaas waxayna dhahaan meydtada qur-aanka loo akhriyey way farxaan kuwa aan qur-aanka loo akhrinina way caroodaan arrintaas maxaa ka jira yaa soo wariyey inay cadhaysan yihiin iyo inay faraxsan yihiin waxaas wax jira ma amwaadda iyo dadka qubuurta galay wixii ku saabsan inay farxeen iyo inay murgeen iyo xaalkooda in waxyi inoo soo tabiyo mooyaan si kale laguma ogaan karo waxyina kuma hayno qur-aan iyo sunno toona laguma hayo markii qur-aan loo akhriyana way farxaan markaan qur-aan loo akhriyayna way cadhoodaan qur-aan iyo sunno laguma hayo warkaasi marka war raadle maaha mas'alada hal meel bay ka qabasho leedahay taasina waxay tahay dadka dhintay qur-aan ma loo akhrin karaa inta qur-aanka la akhriyo hawaabka iyo ajirka qur-aanka ma loo hadiyeyn karaa waa mas'ale ay salafkii isku khilaafsanayeen ridwaanullahi calayhim culimmadii salafkaa ku kala aragti bedelaa oo qaar waxay qabaan in aan meydka qur-aanba loo akhrin karinba noocuu dooni ha noqdo mana gaadhayay leeyihi waxaana ka mid a imaam almalik caleyh raxmat ullah imaamu malik fi lmashhuuri canhu waxaa ka mid a imaamu shaafici caleyh raxmat ullah calayhim alraxma waaridwaan labadaa imaamba waxay leeyihiin meyd qur-aan ma gaadho waxay deliishanayaan aayadda qur-aanka wa an laysa lilinsaani ila maa saca insaanku ma laha wuxuu shaqaystay waxaan ahayn wixii deliil ka soo reebay meesheeda wa waxaa kaloo deliishanayaan xadiidkii fii saxiixi muslim ku yaallay idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu ila min alaa ibnu aadamku markuu dhinto camalkiisu waa go'aya ilaa saddex mooyaane saddexdaasi waxay ahayn sadaqa jaariya aw cilmin yuntafac bihi aw waladun saalixun yadcuu lahu sadaqa uu ka tegey oo weli usii socota cilmi uu dadka baray oo la intifaacsanayo iyo ilmo wanaagsan oo usoo ducaynayo oo ka dambeeya saddexdaa waxaan ahayn waa go'ay buu xadiidku leeyahy almuhim masaladu cinda asalaf waa masala khilaafiya ah sidaas daraaddeed maadaama aynan nas khaas oo ku soo arooray lahayn waxaa fiican in looga wareego wixii nas ku soo arooray leh oo meydka inuu gaadhayo deliil cad loo hayo sida maalan sadaqadoo kale waa ijmaac waa la isla ogolyahay sadaqadu inay gaadhayso xadiidkuna waa tilmaamay sida maalan xajkaoo kale in laga soo xajiyo cumrada oo kale ducada iyo istikfaartoo kale kulli adilay leedahay meydka inay gaadhayso wixii marka deliil cadle in lagu gaabsadaa fiican ama masalada qur-aanku deliil cadna ma leh
waana khilaafiya salafka dhexdooda wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤال كنتني لحد شيخ ناقتيدا oo aan biilan jiray ayaa iga dhuumatay waxayna aaday Yurub wiil ay dhashayna way wadatay marka muddo kadib ayay tiri waa iska kaafasaqaya waxaana guursanayaa nin kale marka diintu maxay ka qabtaa maxaad se igula talin lahayd waa dhaqan waayahan jira Soomaalida dhexdeeda inay haweenku dhuuntaan oo iska carraan ama xataa ehelkoodii inay ka shaqeeyaanba siday u carrar lahayd ninkeeda uga carrar lahayd yani islaan dhan oo dhaqan oo nin lahoo carruur lahoo nool oo baa inta tigidh loo soo diro ama hawl la isugu soo abaabulaa leeyahay ka soo carrar waa dhaqan xumo aad u weyn aad u xun waay xadiidkii nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waciid adag baa ku soo arooray nin xaaskiisa ku dirta oo ka shaqeysa waciid aad u adag baa nabiga ka soo arooray salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ilaan guri baa duminaysa waa shaqadii shaytaanka waa shaytaanka qabta hawshaas inuu guryaha dhisan dumiyo oo reeraha kala diro intaasi marka arrin khatar ah wax laga shaqeeyana ma haweenaydu haddii ay ninkeeda ka cararto ama amarkiisa iidankiisa iyo ogolaanshihiisa la'aanta iska tagto waa naashizad waa caasiyad hadday naashizo tahayna xaq ma leh xuquuq gogolla ma leh xuquuqdii biilka iyo masruufka iyo marashadana ma leh ilaa ay ninka daacadiisa ku soo noqoto marka iyadoo dambiile ah oo baxday oo carartay ilmihiisiina la carartay haddana xaq baan u helayaa inaan isfasaqo yaa xagee laga ciyaaraa ciyaartaas warkaasi war jira ma aha fasaqo asbaab buu leeyahy asbaab keentaa jirta fasaqa sharciga fasaqu sidiisaba nas qur'aan iyo sunna cad kuma soo aroorin laakiin waa ijtihaadkii khulafaa ur-raashidiin waana mar laga maarmi waayey inay awoodi soo farageliso xarigan goyntiisa asbaab buuna leeyahay asbaabtiisa waxaa ka mid a maalan labada ruux mid ka mid a inay ceeb ku soo baxdo munafir ah oo dabciga bini aadamku uusan qaban karin ninku maalan inuu haweenaydiisa ama xaaskiisa biilan kari waayo sida fuqahada qaarkood baa qaba tabarba u waayaba ama ma ahe gogoshiiba uu tabar u waayo wahaakada labada isqaba mid ka mid a inuu diinta ka baxo ridoobo walciyaadu billah asbaab bay leedahay fasaqa keena laakiin in yurub loo tahriibo oo badaha inta laga dhaco kadibna sababan yani sharcan mubarrir baan u haystaa inaan isfasaqo warkaasi war jira maaha taa waa dhanka mas'alada ta'siilkeeda sharciga wey laakiin maxaad igula talinaysaa hadday noqoto taladan ku siinayo waxay tahay haweeney intaasoo dhan martay oo kaa cararto yurub ka dhacday tu kuu dhaanta allah kugu bedelo masalada labaad weeye haddayba ku leedahay nin baan guursanaya waan iska kaa fasaqaya intay iyadoo xaasku oo gogoshaadii ah ay nin kale la seexan lahayd waxay kula seexataba waxaan kugula talin lahaa iska siidaa iyadana ha dambaajinin oo dembi weyn ha gelinin adigana wax ku dhaama waad heli sidaas daraaddeed waxaan kugula talin lahaa faraha ka qaad marba hadday leedahay nin kale aan guursanaya waxay ku guursan la garan maaye faraha ka qaad iska fasax ha guursato waxay guursanaysaa adiguna tu kala raadso wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشينا كنتني تضباط شيخ خير الله كوكو أبا المريو وذا تبليغه أي وحن كم مغلي هذا لذن قفكي صلاة الصبح كتغا وجيسا وحلقا قادا نورك قفكي صلاة الظهور كتغنا ارزق أيا لغو عريريا قفكي صلاة عصر كتغنا شركيس أيا باليوبا ومعنا دوغوبا قفكي تن مغرب كتغنا علمي جيسا لوما بركايو qofkii tan cishaha ka tagana hurdada ayaa laga qaadaa arrinkaas maxaa ka jira wax xadiis ah ma ku soo arooray waa sheekadii tabliiq way waxa soo
axaadiisaan jirin oon sal iyo raad lahayn in nebiga laga sheego waa qasaasiinta iyo dadka qisaska iska jecel waxyaalahay sheegaan xadiidkaasi meeluu ku yaalla ma arkin kutubta xadiidka in badan baan ka baadhay meelaha madaanta laga heli karo laakiin ma arkin wax sheegay saas daraaddeed waxay u badan tahay wixii badnaa ay wadaadadaasi daldali jireen inuu ka mid yahay baan u badinaya wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha 58aad sheekh diinta islaamku maxay ka qabtaa tahriibka qofka naftiisa ku haligsamaysa ma soo gelayaa qof naftiisa dilay الله تبارك وتعالى القرآن الكريم كوحكولي هاي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نفتينا كردنا هلاكها كردنا نفتي آيادا سيسي كتمي دوحي أهيت صحابة التلماميان على كذا دور نوع بي كتما دا جهاد كي شرعي قاها إن لغا فريست إن وحلقوا بحيانا لديدو وهلاك مفسرين السلف وحي كنت الماميان هلاك وحا كمدا آيات السوق ليا إن روحه انتو الدنبابه إلى هذا اللي يدن بدافع ما يقوسته وهلاك نوع كمدا وحا كمدا بيليهن روحه إنو سفر قليه صحيدي الله بهنانا أوسن قادم كدبنا نفتي سخطر قليه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معاني فربضان مفسرين السلف كفسرين أي وحو مركو سأروري الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وحوليه هاي آيات معاني دا سودان ويسوه دا قليسة مركا الروح نفتي سخطر قليي ومالها لسه قليي ما بنان وانا دنبي آدوين sidaas daraaddeed baa xataa mujaahidka ilaahay dartii u dagaalamay dagaal sharciyana ku jira gaalana la dagaalamay inuu naftiisa meelaha khatarta ayna ka soo noqonaynin ku tuuro bay culimadu dawaabid u dhigeen meeluu isleeyahay ka soo noqon maysa ama u badinayo oo waxay yidhaahdeen ama waa inuu cadowga xanuujinayo ama waa inuu muslimiinta dhiiri gelinayo geesinimo gelinayo ama waa inuu shahaada raadis yahay oo maslaxa ka ratimayso laakiin uun istuur un adigu naftaada khatar geli haddii dad gaalo la dagaalamayso aan faa'iido ka imaanaynin maya bay dheh ma bannaana marka nafta in la halis geliyo meelaha khatar ah muxuu ahaay ku dhimanayso la geliyo ma bannaana asal ahaan aayadda itlaaqeeda laga qaadan حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفائدينيسا وحا كمدا حديث علي بن الشيبان أبو داود يا بخاري في الأدب المفرد أي كيمت النبي صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة روحي بريا قري كركي سطحي كوري قري روحي بريا السقو وح عليا عن لهين يعني دربي يا وح عليا ودعيتانك كعليا إنه ماشى كدعه وح كعليا السقو وصل لهين قري كركي أو كدع كر روحي برياي يعني عهدي يبلنكي وكبر النقطة سلا حديث كروايات كي سوحة كم إذا أحمد البخاري في الأدب المفرد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي من بات فوق بيت ليس حوله شيء يرد فوقع فمات فقد برئت منه الذمة روحي هلكا كسر دعوسا كودنت عهدك يبلنكي بري بكي وحليها ومن ركب البحر بعدما يرتج فمات فقد برئت منه الذمة روحي بدفو لمركي بدو كعسنت وهلكا كودنتنا أمانكي عهدك بري بكي حديث كاسي شيخ الباني عليه رحمة الله وصحيحنا يا سلسلة يا صحيح الجامع الصغير كما وكو صحيحنا يا إن قصوا الشيخ شعيب وتلمامة إنه ضعيف يا رواية كيسي سوقيكيني وحلود اللي شنو حديث كاسي روحا قريقا كوركي سبري كسور لعي كرا نفتي سو خطر قلينا
ruuxa baddoo kacsan fuulaya naftiisuu khatar gelinaya waa loo diiday marka waxaa la mida sabab kasta ama xaalad kasta oo ruuxu naftiisu ku halisgelin karayo lama ogola saas daraaddeed waa xaaraan mana bannaana kamana foga sidii ruux isdilahayoo kale oo xadiista ku soo aroortay ruuxa naftiisa dilay qaar ka mida waxay tilmaamayaan nin dagaal ku jiray oo jihaad ku jiro dagaalamay oo dhaawacmay oo xanuunkii intuu u adkaysan waayo isdilay xanuunkii nabarku u dulqaadan waayo mid kale nabar baa gaadhay nabarkiibuu intuu waxgeliyey buu qolofta kaga qaadoo qojoqojeeyey kadibna nabarkiibaa caabuqay oo markaasuu u dhintay naftiisuu dilay ya marka waxyaale intaa ka yar tanba ka fududba bay shareecadu ka soo qaaday ruuxu inuu naftiisa dilay wabitaali ruuxa naftiisa dilayna haddee waciid adag baa ku soo arooray tahriibku intaa wuxuu la dheeryahay nafta khatargelinteeda waxaa garab yaalla cirdigii iyo sharafkii oo iyadana la khatar gelinayo oo dumarka jidkaa marayahay boqolkiiba 90 waxay ku talagelayaan ayna u badan tahay in la kufsan bal waxaaba la ii sheegayba waana jirtaa marka ay tegayaan bay gabdhuhu xataa isbikaaro jabiyaan waxay ku talagashayin in la fuuli doono oo si diyaar garowba waaba loo si diyaar garoobay marka cirdigii iyo sharafkii baa loo baabi'inaya maxaa loo socdaa xagga marka la tago been baa la akhrin doonaa kaba daranba ya marka xagga la tago meeshii loo socday la tago ninkin ilaahay nabadgeeyaba oo fakadaba ya hadhow muxuu akhrin doonaa been buu akhrinaa been buu meeshii ku degi iyo khayaano hadhow intaasoo dhan marka laga gudbo maxaa loo socdaa marka waxaa loo socdaa hilib weydaho buur korkeeda saaran aan la fuuli karin islaamihii 10 ahaayee xadiidka bukhaariga ku yidhi ee mid walba ka sheekaynaysa ninkeeda mid baa cajab badnaydoo waxay tidhi ninkaygu wuxuu la mid yahay hilib weyd ah oo buur korkeeda saaran buurtana fuulideedu ma sahlana bay tidhi ya yacni waxa weeyaan markaad fuusho ood dhibaatooto ood kadeedanto ood rafaaddo ood meeshaad u socotee tagto mise waxa kaa horreeyey waaba hilil weydahoo aan fuud iyo maraq iyo nacfi midna lahayn intaasoo kadeeda marka la maro meesha la tegey nafciga yaalla markaad aragtana waa dullinnimo aafaadka iyo gaalnimada taalle zaa'idka ana iska badaa waxaasoo dhan marka laysu geeyo tahriibku waa xaaraan fii shariicati moxamed sal alla alayh wasalam ma bannaana ninkii ku dhintana asagoo caasi ah oo ilaahay caasiyey buu dhintay safarkiisuna waa safaru cisyaan waay safaru taaca maaha safar mubaaxana maaha wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha 59aad walaalaha ixsaan miidiya khayr allah idin siiyo sida wanaagsan aad ugu adeegtaan dacwada maanta waxaan rabaa inaan shiiqa weydiiyo su-aalahan soo socda shiikhow aabbahay wuxuu ka dhintay guri iyo xoogaa hanti ah oo lacag ah markii uu dhintay waxaa la joogay wiilkii ugu yaraa walaalaheenna isagaana aasi aabbe wuxuuna kula dardaarmay in lacagta iyo waraaqaha gurigaba uu ku wareejiyo mid ka mida walaalaheenna uu aabbe uu aad ugu kalsoonaa wuxuu aabbe wiilkii kula dardaarmay inuu wax ka cuni karo keliya lacagtaas haddii ay baahi u qabato haddaba shiikhow wiilkii lacagtii dhaxalka ahayd wuu wada qaatay isagoon wiilkii lagala dardaarmay uusan ku wareejin markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay waan u baahanahay haddaba shiikhow lacagtaasi dhaxalka oo 8 qof oo walaalo ah ka wada dhaxayso oo wiilka qaatay maxay diinta iyo shariicada ka qabtaa bismillahi rahmaani rahiim waa dayn wiilka lagu leeyahay xoolaha uu qaatay waa dayn waa inuu gudo xoolaha la dhaxlo waay ama haddii uu qiil ka dhiganayo duqa yidhi haddaad u baahato iyo waxaad uga baahato warkaa laftiisaan saxsanaynba laanna nabigeenna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqah falaa wasiyata liwaarith ilaahay ciddii xaq lahayd xaqeeda waa siiyey dhaxalka xoolaha waa la qaybiyey
nin walbana xaqiisa ilaahay baa u qoondeeyey mar hadday sidaas tahay cid dhaxalka wax ku leh dardaaran male buu nebigu sal alla alay wasalam waxba looma dardaarmo dardaaranka uu meydku intuusan ruuxu dhimanin uu dardaarmi karo oo xoolihiisa 3 meelood meel ah wuxuu u dardaarmi karaa dad aan dhaxalka wax ku lahayn oo keliya laakiin dadka dhaxalka wax ku leh dardaaranka ma galaan hadduu dardaaranka geliyana waa baatil ilaa inay dadka dhaxalka ku leh ogolaadaan oo iyagu idmaan mooye saas daraaddeed duqa warkiisii ahaa haddii aad wax uga baahato wax jira maaha xoolahan waxay ahayd inuu xifdiyo ciddii lagala dardaarmay ku soo wareejiyo kadibna shareecadu dhaxal siisoo loo qaybiyo hadduu cunayna xaqdarruu ku cunay waana lagu leeyahay waa in laga helo kadibna la qaybsado waay wallahu aclam jazaak allahu khayran su-aasha lixdanaad salaan ka bacdi magacaygu waa abshir waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha su-aashan waxaan ahay qof baaralays ah oo qaarka dambe aan shaqaynin alaashan qaarka dambe ayaa dareenka ka maqan waxaan rabaa si aan u weyse qaato salaada miyaan gebagabaystaa tan kale biyaha inaan ku weyse qaato ma awoodo mararka qaarkood oo sariir ayaan jiifaa jazaakum allahu khayran allah tabaaraka watacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku yidhi fattaquu llaha ma statactum ka baqa alle inta karaankiina waajibaadka shareecadu waxay ku xidhan tahay karaanka intaad awooddaaday ku xidhantay wixii awooddaada ka baxsan waa lagaa kor yeelay ama wax kalea lagugu bedeli ama isagoo dhanba waaba lagaa tuuri nabigeennuna waa ka yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma statactum haddaan amar idin amro intaad ka kari kartaan kala imaada macnaa waxaydan kari karin markaa idinma saaran shareecadeennu taysiir bay iyo fududayn bay ku salaysan tahay maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj shareeco xaraj iyo cidhiidhi ma aha usuusheeda waaweyn baa waxaa ka mid ah almashaqatu tajlibu taysiir marba haddii ruuxu cidhiidhi iyo mashaqo galo fudayd bay u soo jiidi way u fududayni lagu adkayn maayo sidaas daraaddeed ninka walaalkeena waxaan leenahay si alla sidii kuugu fududaata u dahaaro qaado inta karaankaaga ah dadaal haddaad weysiisan karto ama cid kuu weysiisa aad helayso weyse qaado haddaad weysiisan kari weydo cid kuu weysiisana aad weydo gebagabayso boodhayso sidaana ku tuko intaasaad kari kartaa walaa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wallahu aclam jazaak allahu khayran su-aasha lixdan iyo koobaad assalaamu calaykum waxaan ahay gabadh ama qof dumar ah waxaan joogaa gobol ninkaygana waxa uu joogaa gobol kale wuxuu igu yidhi soo bax oo imow anigana waxaan ku idhi ma soo bixi karo maxram la'aan isagana waa diiday inuu ii yimaado arrinkaa dartii ma u dalban karaa furiin maya intaan furiin la dalbanin wax ha la xalliyo xal kale ha la raadiyo furiinku waa mar xal kale la waayey oo wax kale suuroobi waayeen aakhiru dawaa alkayi waay marka daawooyinka kale o dhan la soo maro baa laysgubaa ayaa daawada ugu dambaysa wa sidaas daraaddeed asal ahaan haweentu maxram la'aan inay safarto waa xaaraan oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiis dhowra oo saxaabo dhowra ka sugan laa tusaafiru almar'atu ilaa maca dii maxram inuu la socdo mooye haweenaydu yaynan safrin ama ma safarto markuu hadalkaa nebigu yidhi sal alla alay wasalam ayaa nin meesha joogaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay o ina imra'atii kharajat xaajatan wa innii kutubtu fii ghaswati kada wa kada haweenaydaydii xaj bay u baxday aniguna waxaan ku qornahay duulaan hebel baa laygu qoray ciidan baxayo duulaana maxaan sameeyaa adiguna waxaad leedahay maxram la'aan haweentu iyana safrin markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam intaliq faxuja maca imra'atika kactag duulaanka ka soo hadh xaaskaaga raac la soo xaji buu nebigu uhi sal alla alay wasalam marka safaradan maxram la'aantee layska fududaystay sax maa
sidaas daraaddeed ninku waa inuu xaaska u yimaado waa inuu gabadha u yimaado kaxeeyo waa inuusan ogolaanin reerkiisu maxram laan inay safarto ama isaguba uusan ka shaqaynin arrintaasi waa arrin khalad ah laakiin marka qaarkood baa waxaa suuroobi karta inay duruuftu adkaato ama isagii imaan waayo ama xagga dukumentigii maalan ama xagga duruuftii nolosha iyo yani safarkii nooligii inuu saamixi waayo haddii xaalada noocaas oo kale ay yimaadaan markaasi waxa weeyaan waa in badalkii gurigu burburi lahaa marka waxaa la odhanayaa sida culimmada qaarkood ay qabaan dad wanaagsan oo rufaqo aamin ah marka gabadha hal raaciyo tii maxram loo waayo waa haddii ay duruuftu adkaato badalkii gurigu dumi lahaa xaaja timid waxyaalahan oo kaleetana xaajaadka waxyaalaha loo banneeyay ka mid tahay wixii taxriimkoodu taxriimul wasaa'il yahay xaaja hadday timaado waa bannaanaataa aan xataa daruuro gaadhsiisnayn wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheena 62 assalaamu calaykum sheekh allaha ku xifdiye waxaan ahay qof aan cibaado badnayn laakiin waxaan aad u jeclahay culimmada waxaan ka difaaca kuwa culimmada wax ka sheega ajir ma ka helayaa aakhirana ma ku badbaadaya jacaylka aan culimmada u hayo anigoo cibaado yar jawaabtu waa haa nabigeenna sal alla alay wasalam xadiidka abu muusa alashcari ayaa nabiga la weydiiyey sal alla alay wasalam alrajulu yuxibu alqawma walama yalxaq bihim rasuulka ilaahay oo nin baa dad jecel mana gaadhi karo cibaadadoodii iyo camalkoodii iyo taacadooda ma gaadhi karo laakiin wuu jecel yahay ka warran baa leeyahy nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam almar'u maca man axab ruuxu wuxuu la meel yahay maalinta qiyaamada dadka uu jecel yahay xadiidkaasi waxaa soo saaray bukhaari xadiidka anas ibnu malik baa isagana jira nin acraabi ah baa nebiga sal alla alay wasalam u yimid markaasuu yidhi yaa rasuula allah mata asaaca qiyaamadu waa goorma ya goormay qiyaamadu dhacaysa ma berri ma saadam ma sanad kadib nebigu ma yaqaano salawaatu rabbi wasalaamu calayh soo ma waqtiga qiyaamadu dhacaysu nebigu ka jawaabi karaa kama jawaabi karo walaa jibriil baan ka jawaabi karin nebigu su-aashiisii su-aal buu kaga jawaabay wuxuu ku yidhi maa acdadta laha oo maxaad u diyaarsatay ya ila waa waqtigaa lama dhihi karee maxaad u diyaarsatoo kuu diyaarsan baa lagu yidhi markaasaa wuxuu yidhi maa acdadtu laha min kaiiri salaatin walaa sawmin walaa sadaqa walaakinii uxibu allaha warasuulah rasuul ilaahayow uma diyaarsanin salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo badan uma diyaarsanin wax qumanoo ii diyaara ma jiro laakiin ilaahay rasuulkiisaan jeclahay buu yidhi intaasaan hayaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam anta maca man axbabta dadka aad jeceshahay baad la meel tahay buu nebigu sal alla alay wasalam marka dadka saalixiinta iyo khayrka iyo ducaadda iyo culimmada iyo ahlu sunnaha iyo tawxiidka iyo dadkaa haddaad jeceshahay camalkaagu haba ka gaabiye iyagaad la meel tahay ninkii munaafiqiinta jecelna iyagu la meel yahay ninkii gaalada jecelna iyagu la meel yahay soo ma ya nin walba shimbirba shimbirkiisa raac waa nin walba meeshiisuu maraya sidaas daraaddeed haddaad intaa ka badiso dadka ahlalxaqa iyo culimmada iyo ducaadda aad difaacdana way ka sii siyaadsantahay wallahu aclam xadiiskaa dambe bukhaari muslim waa soo saaray sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waa su-aasheenii 63aad assalaamu calaykum sheekh jinaasada meydka ma qasab baa in dadka loo sheego ruuxa lagu tukanayo waxa uu yahay rag ama dumar in dadka la yidhaahdo janaasadu waa rag ama waa dumar waa sunnatu lxaramayn oo hadda labada xaram madiine iyo maka ayaa laga isticmaalaa waxaan u malaynayaa xaaja keentay oo meydka marka lagu tukanayo loo ducaynayo
marar badan baa waxaad u baahanaysaa maydka cidda lagu tukanayo waa noocee mar caruur baa ku jirta caruurta marka lagu tukanayo duco khaasay leeyihin oo waalidkood baa loo duceeya saas daraadeed ruuxa ku tukanaya inuu og yahay inay caruur yihiin si uu ducadoodii ula yimaado marmarka qaarkood maydadkii waa badan yihiin in laysu sheego maydadku waa badan yihiin si ducada loo jamciyo allahuma اغfir lahum warxamhum wacaafihim wacfu canhum si ducada jamaaciga loogu duceeyo duruuftaa markaasoo kale keenaysa laakiin waa rag iyo waa dumar wax baahi badanoo loo qabaay iima muuqdo sababtu waxa weeyaan maydku hadduu rag yahay hadduu dumar yahayba waxaa loogu ducayn karaa mayd ahaan oo damaa'irta sidii mayd oo kalea loo celin karaa allahuma اغfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu mayd ahaan baa loogu celin karaa iyadoon lab iyo dhadig midna la fiirin almuhim marka la soo ururiyo waxa weeyaan wixii xaaja ama muqtadaa uu keeno sharciya sabab sharciya ay keento oo maydka ama ducadiisa ku saabsan ama axkaamtiisa ku saabsan dadka ku tukanayana saamayn ku leh markaasoo kaleeto waa loo baahan yahay mashruuc bay noqonaysaa haddii aynan jirinna hadda markaasi wax keenaya oo xaaje iyo muqtadii ana lama hayo wakhtigii nebigana salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma jirin iclaanka noocaasoo kalea markaasoo kaleeto waa in layska daayo wey marka tafsiilkaas ayaa ku jira wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheena 64 waxaan galmood sameeyey wakhti ramadaan wakhtigaas mararna reer baan lahaa marar badanna reer ma lahayn farabadni awgeed ma xusuusan karo inta jeer ay ahayd su-aasheedu waxay tahay hadda waxaan rabaa inaan toobad keeno imise kafaaro gud ayaa layga rabaa aftuuna ma'juuriina jazaakum allahu khayra aljazaa waxaa laga rabaa horta towbadda dembigu intuu dooni ha la ekaado ruuxa hadduu si dhaba u toobad keeno ilaahay dunuubta waa dhaafaa in allaha yakfiru dunuuba jamiican markii laga soo laabto wuxuusan dhaafin ma jiro allah tabaaraka wa tacaala waxaa lagaga baahan yahay towbad dhab oo shuruudeedii wadata inaad la timaado waxaa kaloo lagaga baahan yahay oo labaad maalmihii aad jabisay in aad dib u qallayso intii aad xusuusato waxaa kaloo lagaga baahan yahay inta goor eed xusuusato inaad soon ku jabisay galmo inta goor eed xusuusato kafaaradeediina waa lagaa rabaa mid walba 2 bilood oo isku xiga haddaad kari weydana dad kari weydana bedelkeedii ayaad markaa qaadanaysaa macnaha waxaa u horraysa qoor xoraynteed waxaa ku xigta 2 bilood oo soonkooda isku xiga waxaa ku xigta 60 miskiin quudintood marka intaad dib u fikirto maskaxdaada ka shaqaysiiso inaad xusuusan karto isku daydo intaad xusuusato kafaaradeedii waa lagaa rabaa intii aad soon jabisay maalmahaad jabisayna qallahoodii waa lagaa rabaa towbadna waa lagaa rabaa intaa waxaa ka soo hadho iyadana lagaaga baahan yahay wixii hadda ka dambeeya inaad hagaagto oo aad weliba badsato soonka sunnaha ah si berri haddaad ilaahay hor tagto xisaabta soonka waajibka ah hadday wax iska qasmaan ka khaldamaan ama wax iska dhimaan casaa walacalla inuu ilaahay soonka sunnaha kugu buuxiyaa dhici karta marka soonka sunnahana badso fitankana ka fogow mar labaa si aadan meeshii ugu loobanin yacni waxa weeyaan seeraha iyo beerta agagaarkeeda ka durug wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheena 65aad assalaamu calaykum sheekh xirfadda saxaafadda ma ku shaqaysan karaa diinta samaxay ka qabtaa saxaafadda middeeda muxuu ahaay la akhriyo iyo midda mushaahadkee la daawado iyo midda la dhagaysto dhammaanteed waa wasiilo waa shay wax loo isticmaalo waxaad u isticmaalayso xukunkeedu noqonaya
sidaas daraaddeed baa culimmadu waxay yidhaahdeen yajri calayha alaxkaamu alkhams aw yajri fiiha alaxkaamu alkhams shanta axkaamta ee diinta baa ku dureerayso mar waajib inay noqotaa laga yaaba marna waxaa laga yaabaa inay mustaxab iyo sunno noqoto mar waxaa laga yaabaa inay mubaax iska bannaan noqoto mar waxaa laga yaabaa makruuh laga fiican yahay inuu noqo marna xaaraan bay noqotaa maxay saa u kala noqonaysaa calashaani iclaamkan aad isticmaalayso iyo saxaafada qaabkaad u gudanayso iyo waxaad u isticmaalaysaa baa xukunku qaadanaya mar jihaad bayba noqotaaba oo markaad xaq ku garab istaagayso ama qoraalkaaga ama hadalkaaga ama warkaaga xaq markaad ku garab istaagayso ama dulmi kaga hortagayso ama shubuhaad khaldan ku burinayso markaasi waxa weeyaan waman jahada bilisaanihi fahuwa mu'min waa jihaadka carabka way markaas jihaadka qalinka jihaadka carabka waa nooc jihaadka ka mid markaad dacwo ku gudanayso khayr ku garab istaagay khayr ku faafinayso waa kada marna saxaafadu waxay noqotaa iska mustaxab oo waa markuu ruuxu kasab ku raadsanayo risq biil buu ka raadsanayo mabda'ba ma xambaarsanaba ninkani fikirna ma faafiyo wax qaldanna kuma faafiyo wax saxsanna kuma faafiyo laakiin waxyaalaha iska mubaaxaad u faafiya xoogaa biilkiisana meesha waa ka raadsadaa way iska bannaanta laakiin bisharti waa inuusan wax shareecada khilaafsan uusan samayn maxaan ka wadnaa haddii uu waxyaala khaldan maalan xaqaa'iqda hadduu ka been sheegoo kale ama ma ahee uu fitno ka shaqeeyo warkiisu uu fitno iyo balaayo kicinayo ama ma ahee wax shareecada ku khaldan buuba tabinaya ama ma ahee daalim gardaran buu ku garab istaagahayaa warka oo iyo saxaafada oo kii laga gardarnaabuu ka hiilinaya ama ma ahee waxaa dhici karta midaan ammaan mudnayn oo ardaal ah buu iska ammaanahaya waa saxaafada soo ma arki meeshay kaa gashaba hadday la gasho sax maaha ku khabiioo aad u liita buu ammaanta ka badinaya maantana iska ammaanaya calashaani waxoogaa baa ka galay marka saxaafadu waxay ku xidhan tahay qaabka aad u isticmaasho marna waxay noqotaa camal sare oo ummad iyo diin iyo akhlaaq u adeegayo wanaag marna waxay noqotaa shay khabiioo liita oo saaxibkeeda naar iyo cadaab geeya dembi weynna ka soo gaadho ayay noqotaa marna mubaax iska bannaan bay noqotaa mar mustaxab bay noqotaa kolba sidaa u isticmaasha laakiin midda baraarujinta mudan baa waxay tahay saxafiga muslimka ah waa inuu yahay nin risaalo xambaarsan ya saxafi iska qaawan oo mabda' la'aan ah oo caqiido la'aan ah oo iska iimaan la'aan ah oo uu meeshay la martaba mara kaasi wax qiimaa ma leh saxaafaduna sideedaba waxay u shaqaysaa afkaar iyo barnaamij bay u shaqaysaa wax iska shaqaynaya ma jiro xataa gaaladan aad arkaysaan el muxuu ahaaye waa xor oo waa madax bannaannahayoo nasaahada ka hadlaya afkaar waxaa loo shaqaynayaa mabaadi' baa loo shaqaynaya adiga marka halla rooraan run mooday kii muslimka ah miskiinka ah halla rooraan run mooday ma aha waa inaad caqiidadaada iyo mabda'aaga iyo akhlaaqdaada ilaaliso ta labaad waxa la yidhaahdo xasaano uu leeyahay ma jiro ninka la yidhahdo saxafiga saxafigu waa muslimka caadigoo kale saxafigu dembiga uu gelayo waa ruux muslimoo dembi galay khaladka uu gelayo waa ruux muslimoo khalad galay oo kale ma jirto waxa la yidhaahdo waa saxafiyo isagu waa ilaashan yahayo xasaan uu leeyahay waa looma dhowaado lama taabto warkaasi war jira marka saxaafadu waa mindi laba afle waa qaabkii loo isticmaalo haddaad shar ku goosatona way kuu goyn haddaad khayr ku goosatona way kuu goynaysaa xukunkeeduna halkaasuu maraya wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha lixdan iyo lixaad assalaamu calaykum salaada duxada loo yaqaano goormay bilaabataa salaada duxada loo yaqaano waxay bilaabataa marka ay qoraxdu soo baxdo wax yarna ay kor soo yar kacdo oo xadiidkii camr ibn cabsa ama cabasa ayaa wuxuu ku yimid nebigu sal alla alay wasalam wakhtiyada markuu ka hadlayay salaadaha aan la ogolayn in la tukado salaada subax markaad tukato
salaadoo dhan iska daa ilaa qorraxdu soo baxdo maxaa ku xiga markay soo baxdana wuxuu nabigu ku xujiyay sallallahu alayhi wasallam faida irtafa'at qida rumhin fasalli markay dhalato korna u soo yara kacdo oo waran qiyaastii kor u soo kacdo marka waran qiyaastii wuxuu leeyahay culimadu waxay leeyihiin isha laga wadaa markaad fiiriso oo qiyaasta malaha wallahi qiyaas hal waran qadarkii way soo kacday sheekh ibn Uthaymeen wuxuu leeyahay waa hal mitir oo kale waa yey kor u soo yara kacday markaad isdhaahdo markaas aad tukan kartaa culimada sunnada sida sheekh ibn Baaz sheekh ibn Uthaymeen iyo culimada sunnadu waxay leeyihiin qiyaastaasi waxa lagu qiyaasaa shuruuqa markay qorraxdu soo baxdo 10 daqiiqo kadib ilaa 20 daqiiqo 15 20 daqiiqo 10 daqiiqo u yar waa inaad qorraxda shuruuqeeda soo bixideeda sugto ilaa 10 daqiiqo 10 daqiiqo wixii ka dambeeya qaar waxay leeyihiin 15 ilaa 20 la gaarsiiyaa fiican halka wixii ka dambeeya ayaa waxa jooga waqtigii salaada duxada ilaa laga gaadhayo zawaalka qorraxdu ilaa bartamaha ay ka tagayso inta waa la tukan karaa xilligay ugu fadli badan tahayna waa xiina tarmadu alfisaal waa markay qorraxdu dhulka kululayso oo ay lacaga gubiyoodo oo muxuu ahay nirgaha iyo qurbacyada yaryarka iyo markay ay yaani lugta markay dhulka saaraan ay ku caga gubiyoonayaan xilliga qorraxdu kululaato ayaa ugu fadli badan in la tukado wallahu a'lam جزاك الله خيرا سائلك سؤال لحدين صدبات سائلك وحوليه السلام عليكم مقعي وأبشر أحمد وكنا الوضمد قلبيتك وحنا يويد لن يراءه وأن السلام يدينك يا شيخ السلام كذب شيخ وحن ويديني سؤاشا وان جيم قرية جيمك وجردسك وجيم قرية جيم كان ميوزك أيا كدارا أنيق ستليفون كيغا أيا قرآن كدارتا وأن كدقيستا أنيقو ديدان إنان هيساهاسي دقيستو وميشا كدارا aniga si awood u maleeyay inaan heesahaasi damiyo marka sheekha inaan weydiiyo ayaan rabaa ma dambiba ayaa iga soo gaaraya quraanka aan meeshaasi ku dhageysanayo anigoo jim gareynaya teeda kale ma dhageysan karaa quraanka anigoo jim gareynaya barakallahu fiik quraanka waxa kala gedisan muusiga inaadan dhageysaniyo meeshuu ka daaran yahay inaad tagto meeshuu ka daaran yahay inaad tagto joogtaaba khalad الله قرآن كريم كاوحو كويري مركو عباد الرحمن صفيني والذين لا يشهدون الزور يا باطل كي الزور كي حمان تماشى الوها يمتغان آياتي كلنا واكير بيري تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ماشى فريسي قدي تشوكي دي ذا وقلد sidaas daradeed haddaad jiim garaynayso ama jidhka dhisanayso meel kale raadso haddaad qur'aanka dhagaha gashato oo aad isagii iska xidho muusigii iyo wixii daarnaa iyadan ishkaalkay leedahay waxay tahay meesha joogiddeedina waa khalad mas'ale labaadna way jirtaayoo qur'aanka aad dhagaha gashatay adoo jiimka ciyaaraya ma qur'aan aad macnihiisa dhuuxayso oo qalbigaagu u soo jeedaa يا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قلبي قاغو لبا قلبي مليد قلبي قاغو روحو كو مشغول سن يحي هاوشناد ku jirto sooma haduu qalbigaagu ku mashquulsan yahay qalbi kale oo quraanka ku dhageysto ma haysid marka quraankii waa iska daaran yahay dhagahana waa iska ka jira waadna iska boodboodaysa ya sax ma quraanka maxaa la yiri wa idha quri'a al-qur'anu فاستمعوا له وانصتوا دغيستا لي دغيستا كليا ما ودك رارعيا صوما الله تبارك وتعالى قالوا وحو كو ايديه قرانك waxay dhageysanayaan ayagoo qalbigoodu ka mashquulsan yahay صوما ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون قرانك waxay dhageysanayaan ayagoo ciyaaraya maxaa ka dambeeya laahiyatan qulubuhum qulubtooduna ay mashquulsanta marka lama rabo quraanka hadaba daarayso dhageysanayso waa inaad u soo jeedo u diyaarsanta laakiin ciyaaro kale aan ku jiraayo dhagahan buu isee ka jiray waa iska daarnaanaya maya oo bil munaasaba waxa la mid ah quraanka laga daarayo suuqyada
inkastoo waayahan dambe ay yaraatay haddana suuqyadan qur-aanka laga daarayo sax maaha leanna waxa wey yaa u diyaarsan oo dhegaysanaya laqwi iyo buuq iyo qaylo iyo qajajac iyo kuwo kaloo waxaa lagu garab daarhayaa sawaaxili qayli haye iyo soomaali qayli haye xayaysiin iyo qajajac iyo ar qur-aanka ka daaya sidaa allahu aclam su-aasha 68aad su-aalahan inoogu dambeeya insha allahu tacaala barnaamijkeenna maanta waxay naga soo gaareen conference call-ka waa barnaamij dacwada lagu faafiyo oo ay isticmaalaan muslimiinta ku nool waqooyiga america loo yaqaano qolalkan yani muxuu ahaye conference-ka 1-on-4ga saa'ilkan wuxuu leeyahay shiikhow waxaa jirta maamo aan ehel nahay waa maamo waayeel ah waxayna ka diiwaan gashan tahay 2 wadan waxayna ka kala qaadataa mid walba lacag ee shiikhow lacagahaasi xalaalba hadday ku ogaadaan ma ku siinayaan waddamadaas hadday labaduba ku og yihiinoo xaggan inaad ka qoran tahay xagganna ka qoran tahay labadubana saa kugu siiyaan ahlan wasahlan laakiin warkaasi war jira maaha ya ruux meel ka qoran meel kalena ka qoran 2 meelood lama siiya waxbaa la kala qarinaya waa kala dhuumanaya xaggaana hawl baa lagu joogaa xagganna hawl kale lagu jooga sidaas daraaddeed labada dawladoodba waa la khiyaamaya ya tanna ruux kalaa la isaga dhigaya taana ruux kalaa la isaga dhigaya ama waa la kala qarinaya markaasoo kale waa khiyaano iyo been wax ku yimid mana bannaana sidaa wixii lagu qaato ama magaca ruux ha lagu qaato ama magaca shakhsi isagu ha ku qaato beentaa iyo khiyaanadaa iyo laqdabadaa wixii ku yimaado shareecadeennu ma ogol leanna gaalna been iyo khiyaano looma sheego muslimna looma sheego ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin waa khiyaano wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha 69aad asalaamu calaykum shiikhow ninka maalin walba diinta caaya islaamka ma ka baxay haddii uu naag qabana naagtiisa sidaa ma uga furmaysaa maalin kasta inuu caayo iska daayay hal mar hadduu caayay diinta waa ka baxay hal mar hadduu diinta caayay ama allah caayay ama rasuulka caayay ama malaa'igta caayay diinta waa ka baxay hadduuba fahansan yahay wuxuu ku hadlayo qur-aanka kariimkaana ilahay masaladaa ku tilmaamay walain sa'altahum layaquulunna inama kuna nakhuudu wanalcab qul abillaahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ورما الله يا آياته سي رسول كيسات كوتشيسيسان أحبها عذر دارنين واد قالوا ذين بالله إيمان كذب مؤمنين مركض هيدين كذب دين تواد كبحدين ما عادكم قالوا ذين إلهي يود كوتشيسيسان رسول كيسات كوتشيسيسان آيات كيود كوتشيسيسان ودينتي marka ruux hadduu diinta cayo diinta waa ka baxaya waana mas'alo culimmada islaamku ay isku waafaqsan yihiin laba isla diidana ma jirto ijmaac wey sababtu waxa weeyaan ayadoo ficil ahaan gaalnimo ah ba haddana waxay tilmaamaysaa ruux markuu diinta caayayo nacay baa la socda alla markuu caayayo nacay baa la socda ixtiraamkii iyo qadarintii ay mudnaayeen buusan u haynin intaasaana gaalnimo ku filan قرآن الكريم قال له وحيري والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم حلوح ليه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وحي إلهي سود تشيبي كهذين مركز إلهي عمل كودي بابيه هو بيه وقالوا مركز أرين لغو كفتما معه أرين لغو عيارنا معه وقال لي ما بنان كتالوه hadduu ruuxu ku dhacana markaaba diintu ka baxaya hadduu diinta ka baxana waxaa loola dhaqmayaa sidii axkaamtii murtadiinta dadka diinta ka baxay axkaamtooda la siinaya oo muxuu ahaay gabadh muslimada ma qabi karo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo salaatul janaaza lagu tukan maayo gaaladaa la ilxaaqinaya wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aashiina 7aad
culimadu waxay sheegeen in islaanta uu ku dhacay dhiigga istixaadada inay salaad kasta u weyse qaadanayso su-aashu waxay tahay marmar iskaalshaha ma masixi karaa iskaalshaha masixidiisu waa masale khilaafiya khufkii nusuusta ku soo aroortay la mid ma yahay mise ma ah waxaase xoog badan inuu la mid yahay oo la masixi karo xadiid culimada qaarkood ay sugayaan sixadiisa laysku haysto xadiidu lmuqiira ayuu nabigu sal lla lay wasalam wuxuu yidhi muqiira wuxuu leeyahay nebigu waa weysaystay waa masaxa cala aljawrabayn labada jawrab nebigu waa masaxay sal alla lay wasalam xadiidkaa waxaa xoojinaya aahaar badanoo saxaabada ka sugan inay jawrabka masixi jireen jawrabka noocyadiisana waxaa ka mida mid mara ka samaysan ama ka samaysan muxuu ahaay ka suuf ka samaysan ama qutni ka samaysan cudbiga wuxuu u qaybsamaa mid adag iyo mid yacni jilicsan ayuu u qaybsamaa marka jawrabka isagoo la kala qaadin saxaabo badan bay ka sugan tahay inay masixi jireen waxaa ka mid a oo uu ka sugan yahay abu mascuudin albadri wuxuu ka sugan yahay albaraa ibnu caazib wuxuu ka sugan yahay alkhaliifatu alraashid cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu wuxuu ka sugan yahay abu umaamata albaahili saxaabo badan buu ka sugan yahay almasu cala aljawrab saas daraaddeed baa alimaam ibnu qudaama calayh raxmat ullah wuxuu yidhi alصaxaabatu masaxuu cala aljawaarib walam yadhar lahum mukhaalifun fii casrihim fakana ijmaacan saxaabadu jawrabka waa masixi jireen wakhtigoodiina cid khilaaftay lama hayo sidaasayna ijmaac ku ahayd buuri marka jawrabka waa la masixi karaa ama ha la yidhaahdo khufkii buu la mid yahay ama ha la yidhaahdo khufkaa looga qiyaas qaadan waa la masixi karaa laakiin marka la masaxayo waa inuu ruuxu xidhay isagoo weyseqab ah weyseqab kaamila waa inuu ku xidhay haddii marka haweenayda istixaadada ah ee dhigfuranka qabta iyadoo daahira hadday xidhato oo intay weysaysato tahaaro qaadato ay khufka xidhato hadhow markay u baahato beddelkay siibi lahayd ama lugaha dhaqi lahayd waa masixi karta bal iyadaaba cid kasta ka mudanoo waxaa badan baahideedaa badan leanna say jumhuurtu qabaan salaad walba ha weysataa la yidhi marka iyada baahideedaa ka badan dadka kale baahidiisa wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha 71 assalaamu calaykum shiikhow shukaansiga xad ma leeyahay hadduu leeyahay ilaa iyo meeqa bil ama sanad ayaan gabar shukaansi la wadi karaa shukaansigaasi waa kee kii oo shareecadu sheegtay hadduu yahay isaga dhanba waxaa laga yaabaa inuusan wakhti badan qaado laakiin ka hadda jiree dhallinyaradu ma dhammaado isagu wakhti ma leh guurka shukaansiga shareecadu waxay u taqaanaa khitbada doonitaanka dumarka ayaa loo yaqaanaa doonitaanka dumarkana innaga dhaqan ahaan soomaaliya haddaan nahay qaabkaynu samayno iyo qaabkii ka jiray mujtamacii nebiga sal alla alay wasalam nusuustuna ku timid farqi baa u dhexeeya waxay ahaan jirtay dumarku gurigooday joogaan marka la rabo in la shukaansadana waxaa loo mari jiray ehelkooda laakiin annaga wiilashii iyo gabdhihii baaba bannaanka iska eriyanayaba masaladaasi waxay leedahay marka ishkaalkeeday leedahay almuhim in guur layska damco ama guur lagu sheekaysto dhibaato ma leh shareecadu way ogolaatay in lays arko haddii guur layska damacsan yahayna way ogolaatay laakiin luqadda laysku shukaansanayo lagu wada hadlayo waa inay noqoto luqad hufan aadaabta shareecada waa in la ilaaliyo sidii laba ruuxoo isqaba oo kale luuqadoodii idinma dhex mari karto leanna isma qabtaan soo ma kelimaad waxaa jira loogu talagalay dadka isqaba inay isdhahaan kuwa ajaanibtaana ayna isdhihi karin falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi marad waxaa ka mida labada ruuxee guurka sheekada guur ka dhaxaysa inaysan isla cidloonin maxaa yeele shaytaan baa saddexeeya waxaa ka mida inaysan fiiradu hal mar waayo hal mar ka bogo ku qanac
haddaad ku qanci weydana bannaanka mar haddaad ku qanacdana wixii intaa ka dambeeya haddaad daawanin xaaraan bay kaa tahay masale kaleeto weeyaane sheekadan dheer ee iska daba joogga ahee abbaayi iyo aboowada ah ayadana aafadayday leedoo fitnay irid u tahay fitna albaabkeed waay dhallinyaro fara badanna inay isku qasmaan oo akhiiran ay isfasaadiyaan inta badan taasaa wasiilo oo waayahan loo helay ee muxuu ahaayey teknolojiyaba loo helay internet iyo aafooyin loo helay iyo waxuun ilaa xaalkooda ogay marka waxaa ka mida maalan ballanqaadkan beenbeenta in la iska daayo sheekh ballan baan siisay inay guursato ballan baan siiyey inaan guursado oo ma idinkaa go-aanka iska leh markaad ballanta isa siinaysaan yaa guurku yuu ka go'a ya guurku weli buu ka go'a gabadha la guursanayo go-aanka guurka keligeed ma lehee weli baa la leh markay ku leedahay sheekh muxuu ahaayey diyaar baan ahay ballan baan kaa qaaday 2 sano kadib waxbarashada markaan dhammaynaan isguursanaynaa sheekh way iga baxday maxaan sameeyaa waa ka dambaysa sooma marka waxyaalahaasoo dhan waa qaababka khaldan oo shariicada khilaafsan oon saxsanayn gabadhii haddii aad sheeko gurida dhex marto wax dawaabidii sharciga laha noqoto wakhti kooban haddii aad kala qancadaanna kala taga haddaad israbtaan ood isguursanaysaanna wax soo afjar ma ha noqon oo looga gudbo stagekii ku xigayoo reerkii in laga doono gabadhii oo la isguursado laakiin afkaan iska qabaynaa meherna ma jiro warkaasi waa war dhalinyaro mana soconay wax shariicada khilaafsan wallahu aclam jazaaka allahu khayran waa su-aashii inoogu dambaysay kulankeennan caawa su-aasha 72 wuxuu leeyahay saa'ilkeeni sheekh waan ku salaamay salaan kadib su-aasheedu waxay tahay waxaan ku noolahay waqooyiga Sweden salaadaha duhurka iyo casirkii way isu dhow yihiin xilliga la tukado duhurka waxaa la tukadaa 12 iyo 17 daqiiqo casirkana waxaa la tukadaa 12 iyo 23 daqiiqo waa xilliga barqada waxaa u dhaxeeya 6 daqiiqo ma isku jamcin karaa jamc ta'khiir ama taqdiim xilliga cisha ma barqinkii ma meelaha waqooyiga Yurub salaaduhu waxay isugu dhawaadaan gelinka dambe inta badan salaada subax iyo salaada duhurku way kala fog yihiin laakiin qaaliban waxa soo gala wixii duhurka ka bilowday marhabinimay galaan marka almuhim tawqiidka baladka aad joogto meesha aad joogto xilliyada salaaduhu soo galaan umbaad raaci waayahan waa la fududeeyey inta badanna dhulkaasi hooskii nusuustu isticmaashay lagama waa isticmaalaba laana qorax hoos lahoo korkaaga maraysaba inaad arkin bay u badantay meelahaasay wareegi oo hoos qumanba male marka hooskii inuu isla ekaado inuu intaa dheeraadeen xadiista ku timid laakiin waxoogaa waxaa la soo dhoweeyey muxuu ahaayey culumta falaga iyo horumarka hadda laga gaadhay baa waxay keentay wakhtiga xilliga duurku soo galayo in jadwal ahaan loo ogaado saacadaha xilliyada haddii marka salaadii duhurka iyo salaadii casarku isa soo galaan oo middan markaad ka baxdo ta kale wakhtigeedii soo galo way dhacdaa waa la tukan marka qaarkood waxaa dhaxaysa waxay ka baxayaan duhurkii markay duhurka saa uga baxaan 5 daqiiqo kadib casarka la aqimay maalin dhaweyd muxuu ahaayey December-teedii oon Sweden joogay salaadii jumcaha markaan tukanoon ka salaamo naqsan ya sunna xataa lama tukan sidaadii loo salaamo naqsaday haddana casarkii baaba la aadaamayba isla meeshii baan ku tukan marka laa baas meeshaada iyo wakhtigeeda iyo duruufteeda iyo jadwalka wakhti salaadaha saacadahooda u degan umbaad raaci insha Allah taala ta kale salaadaha casarka iyo duhurka axaadiistii nabiga sallallahu alayhi wasallam jibriil uu ku tujiyay marka la fiiriyo salaada casarka iyo duhurka meel ay iska soo gali karaan baa jirta oo culimada qaar baa qaba waqti mushtaragaho duhurka dhamaadkiis iyo casarka bilowgiisu meeluu iska soo gali karaa oo xadiidkii jaabir oo jibriil waa ka ku yimid maalintii hore wuxuu duhurka tujiyay markay qorraxdu zuushay maalintii dambana wuxuu tujiyay
markii shay walba iyo hooskiisu isla ekaadeen casarka maalintii hore wuxuu tujiyey shay walba iyo hooskiisu marka isla ekaadeen maalintii hore xilligii uu duhurku dhammaanayay ee uu ka dhigay inuu dhammaaday ayuu casarkiina ka dhigay inuu bilowday marka meelahaas oo kale fuqaada qaar baa qabee inay isu imaan karaan waqtiyadii baa dhici karaysa duruufta khaaska deegaamadaasina gooni bay leedahay wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam hal qadiyad ban baraarujinay intaana ka bixin walow jalsadu dheeraatay halka qodob waxa weeye waxa la ii sheegay inay jiraan niman qolo fanaaniin oo iswato wiilal iyo gabdha oo iclaamaad magaalada ka wada oo xaflad ka qabanaya meelaha maxaa la yiraahdaa bangani maxay dhahay bangani hool wax soo kala oo muxuu ahay magaalada ku qaybinay marka waxaan dhihi lahaa dadkaas hal iska jiro iyo meeshaas yaan la tagin waxaasi waa meel ilaahay lagu caasinayo heesa iyo muusig iyo qashin iyo dumar qaawan iyo waa wixii shariica diiday kaaga darane haddana lacag bay ka qaadanayaan ya bilaash ma marka lacagtaadii waa oo diintaadii waa oo aakhiradaadii waa oo wax walba waa oo adoo caydha soo noq ya diinna gubay xoolana gubay waa shaytaan waa ducaatun ala abwaabi jahannama waa ducaad iridda jahannama taagan oo dadka ugu yeedhayo kaalaya soo leexda la soo gala marka iska jira fasaadka ay wadaan ay meelo badan ka wadaani allah hanuuniye waa fasaad iyagana gubaya ummadana gubaya daayirtana ha looga nasaxeeyo khaasatan waqtiga ay ku soo beegayaan waxay leeyihiin waa sanadkii cusbaba bilaabanaya ha looga faa'iideysanaa daayirta war sanad cusub annaga ma lihi ya sanad cusub gaala iskale annaga sanadka cusub goormuu noo bilowda ya sanadkeena cusub xataa ma garanayno imtixaankeena haysta sooma sanadkeena cusub muharram waa soo dhaaf sooma ha ahaatee markuu bilanahayo mana boodboodno mana damaashaadno shariicaduna nooma jidin kaanagii haddaan u damaashaadi weyno ma ku kala u damaashaadeen ya dhalinyarooy hal iska jiro dadkaas waa dad ibtilaysan waa dad fidnaysan ayagana allah soo hanuuniyo ummadana ha looga digo wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam. No one knows the secret.